waxaanu aaminsannahay in midnimada horumarka iyo gobonnimada dadka Soomaaliland uu ku jiro dariiqa wada hadalka masiiriga in la sii wado oo laga midho dhaliyo waxaanu u taagannahay ilaalinta madaxbannaanida midnimada dhuleed iyo gobonnimada dadka Soomaaliyeed dhulku waa dhaxal umadeed war-saxaafadeed ku saabsan xadgudubka Itoobiya ee madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya maanta bishu tahay Janaayo 13 2024 annagoo ah siyaasiyiinta wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka soo jeeda Soomaaliland waxaan halkan ka soo jeedinaynaa mowqifkayga ku aadan damaca iyo xadgudubka dowladda Itoobiya ee ku aadan isfahanka dhalanteedka ah ee ay galeen dowladda Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi number 1 waxaan cambaareynaa damaca iyo xadgudubka dowladda Itoobiya iyo is-afgaradka ka dhacay Addis Ababa 1 bisha 1 2024 ee magaalada Addis Ababa ku dhexmaray dowladda Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaanu u taagannahay ilaalinta madaxbannaanida midnimada dhuleed iyo gobonnimada dadka Soomaaliyeed dhulku waa dhaxal umadeed mana jiri karo qof awood u leh inuu bixiyo taako ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliyeed waxaanu taageersannahay go'aamadii ka soo baxay golayaasha aan ka midka nahay sida labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha wasiirada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadanaa is-afgaradkaas xadgudubka ku ah qarannimada Soomaaliya waxaanu aaminsannahay in midnimada horumarka iyo gobonnimada dadka Soomaaliland uu ku jiro dariiqa wada hadalka masiiriga in la sii wado oo laga midho dhaliyo si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaanu taageersanahay oo soo jeedinaynaa in la xoojiyo oo la sii wado wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland uga bilowday dalka Djibouti oo laga midho dhaliyo waxaanu ka walaacsanahay hab fikirka iyo tallaabooyinka qariska tuurnimada ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo caqabad ku ah nabadda deganaanshaha iyo wada noolaanshaha shucuubta ku nool gobolka Geeska Afrika waxaanu ku wargelinaynaa beesha caalamka in wixii ka dhasha damacaas indhabeelka ah ee khalkhalka gelinaya amniga iyo xasiloonida gobolka inuu mas'uuliyadeeda qaadayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ugu dambeyn waxaanu taageersannahay dadaalka diblomaasiyadeed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan dowladda ugu jiro damaca dowladda ugu jiro difaaca iyo gobonnimada iyo madaxbannaanida dalka Soomaaliyeed annagoo maanta halkan ku dhammaan xildhibaanada labada gole wasiirada ka soo jeeda gobolada waqooyi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka annagoo maanta halkan ka jeedinaynay baaqaas dheer una jeedinayna ummadda Soomaaliyeed